بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله وعشر كني شرات كبرنيني برنامج كني جوجل نوت بوك LM kaasoo inoo fududeynayay waxbarashada iyo sidoo kale AI-ga la xiriiray. Hadda waxaan soo baranay sida buuggii su'aalo iyo jawaabo looga diyaarsado. Macallimiinta badanaa waxay weydiiyaan war su'aali jawaabayahay macallimaanta kadib adiga diyaarso weliba waqti kooban ku diyaarso si fududna ku diyaarso. Mid kale in xasuusiyo barnaamijkan mobilada xataa waa lagu sameyn karaa haddii aad laptop haysanin shardi ma aha computer haysanin mobilkaada caadiga ah ayaad ku sameysan kartaa kaliya waxaa u baahan tahay documentiskii PDF-yadoodii inaad haysato ayaad u baahan tahay. Then hadda maanta waxaa kaloo inoo dhiman documentigii waa kan waa ii qoray su'aalahan dambe ay anfacay oo 42da sidee markaas ugu bedelanayaa Word MS Word sida ugu bedelanayaa it's easy way fududahay laba qaab aad sameyn kartaa haddii aad rabto u baahan tahay inta ka soo qabato select ya meeshii isku dhehaysa mujida meeshiisa ku soo jiidaysa muska select ku soo dooranaysa ilaa ay halkaan keenaysa kadib right click kadibna copy aad dhehna meel banaan ee desktop-keena imaanayna Allah musta'aan marka imaano kadibna new waxa furanaynaa Microsoft cusub ayaan furanaynaa halkaasi ayaan markaasi aan ku basta garanaynaa kadibna qoraalkeena meeshan ayuu inoo soo imaanayaa sidoo xaadir ah. Okay ba marka laba mid waa ku xasuusinaya qoraalka marka soo gashato Word MS Word wuxuu kaaga baahan yahay editing inaad edit ku sameyso ama tafatirto inaad control A dhahdo select dhahdo qoraalkan aad ka bedesho Times New Roman farta la jecel yahay qoraalka cabirkiisa 14 oo kale ka dhigto as mastarada dhinacaha u jiido si uu markaasi warqada ay ku noqoto mid waafi ah waxa ugu muhiimsan oo marka ka baahan yahay saa u jeedid su'aalaha iyo jawaabaha waa isku dhex qoran yihiin oo su'aasha koowaad markay halka ku dhamaad jawaabtu way ku dhex jirtaa marka adiga kala baxsanayo oo halka calaamad su'aasha kale gadaasheeda cursor ka dhigaysa inta dhehaysa waa ka hoos ku keenay dhammaan saa u jeedid kan halka gay Allah musta'aan xaqoosaarka waa su'aasha saddexaad kan gay kan halka gay oo sida ayaa u dhameynaysa dhamaan ilaa aad ka wada dhameyso su'aalaha iyo jawaabaha xariiqaha kadib ka tirtir xariiqaha yar oo ku siinaa meesha ka tirtir marka sida u dhameyso kadibna documentigaadii save gareyso page number u sameyso MS Word asiinay sharaxaadiisa 10 ka soo diyaarin doona insha Allah ta'ala waa save gareysanayna markaas xiga MS Word kan save gareysanay waa iska halkaan inoo soo gaabay aan ku soo laabano barnaamijkeeni Google Notebook sidaas aad documentiga ama warbixinta uu ku siiyay loo qortaa hadda loo qaataa oo MS Word loo geystaa marka insha Allah la socod wanaagsan cashirka kale xiga oo ku baran doono qaabkee looga dalbadaa inuu imtixaan ku qoro sida wada ogsoonahay imtixaanka dhowr qaybood uu ka kooban yahay hadda aad ku wareertay inaad su'aal raadiso oo su'aashii imtixaanka ka dhigtaa oo xagee qortaa qaabkee u qortaa luqadee ku fahmi weysay ay ku diyaarinayso Google Notebook LM ayaa kaaga shaqeynaya imtixaanna ku diyaarinayo oo buugi su'aali jawaab ku diyaari imtixaanna ku diyaarinayo waan arki doonaa qaabka loo diyaariyo cashirka xiga isla socod wanaagsan insha Allah.